السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر يوتيوب channel كنوردين محل طلنا دي تامر كي ورثة channel كسبقة سبسكرايب صار فيديو إنه لايك صار أدي أضل ماسته ما تحاول الناس السؤال كلا أيام بشر يدين دون الناس إذا إنه عادي هذا ما أنت سأش أو يدين السؤال هو كدوة تاي لكن هل ميد ذيك عصنا أو إن تكمل تيجي نور بتان أو حنا ذيك عصنا واحد تان واحد ربلينا المجا كبد النت channel كا شنطة مجا هالكن كقارن كان جدين لهين نوض حلا إن شاء الله أدو ما ستين مقال كان استعد أنا اسمه لأن هاي كقيب قاتيك وهذا النصقون إن شاء الله. كسر دوي channel كنوردين محل هذا مجا كبلاوي magacaygu waxa weeyaan Xamza Xad Caatay anoo ku magac dheer Xamza Shiine dhanka dalka Djibouti xamse shiina waxaad noo sheegtaa lacala walaasha iyo xaaskaaga mid kaliya badbaadin karsa teed badbaadin leh walaashay iyo xaaskaaga waxaan badbaadinaa walaashay sababta u doortay sababta oo doortay hooyo way duqowday walaalka leeyma dhali karayo xaas waa iska heli kale Britole aad ma astaa walaalkii kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa magacaaga ku bilaabay Asya Asiya waxaad noo sheegtaa lacala hadii lagu dhaaniga uu kula guursanay ama waalanay keebad dooran leh uu kula guursanaya ama waalanay aniga guursanaya may gabadh kale uu kula guursanay ama waalanay awash oo waayo muxuu kala guursan marka inuu waasha oran lahayd ha waragoy buuxan ku kala iska dooran aad ma astaa kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaashaada magacaaga ku bilaabay ku dhawahay wala magacaygu waa Isra Ismaaciil Isra waxaad noo sheegtaa lacala hadii lagu dhaaniga uu kula guursanay ama hawaasha keebad dooran lahayd bisinka de hawaasho miya wala weelanay markuu kula guursanay wara hawaash inuu waasha jeclaan lahayd marka intuu guursan lahaa ha walaal waan iska dawaysan lahaa way aad u maasantay kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay Usmaan Faarax Bishii waan dhawahay walaalka reach bitu tahay way waxaad noo sheegtaa su'aal baa ku weydiinaa free laba waxa meel wada taagnaa gabadha aad qabto iyo walaasha dan mid ahaan bad kaliya badbaadin kartaa wali takalnoo sii deynaysa teed badbaadin leh waxaan badbaadinaa runtii salaanteeda sababta maxay tahay walaasha uga doorsada xaaskaaga sababta walaashay in kastoo horta iyada ku badbaadinay sababta salaanta waa nolosheedii salaanta badbaadin lahaa salaanta badbaadin lahaa marka walaasha ka tagtay haddii aan horreysiyeen walaasha badbaadin lahaa ma mid kaliya choice waa istaa inaad badbaadiso keebad walaasha badbaadin lahaa walaasha waa ka noqotay xaaska xaaskayga waa ka noqday way aad u maasantay kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay Rayaan Fahmi Cabdalla waan soo dhaweeyay sax Rayaan Fahmi way Rayaan waxaad noo sheegtaa lacala hadii lagu dhaado walaasha iyo xaaskaaga labadooda mid ahaan badbaadin kartaa teed badbaadin lahayd waxaan badbaadin lahaa walaashay badbaadin sababta badbaadinaysa xaaskaaga ugu tagaysaa maxay tahay dee waayo xaas ma yeelanayo ma yeelanaysa ma rabo xaas waa buuq badan dee xaas aad ma maasantay kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay anigu magacaygu si Faarax Xusii wala artaa Faarax Xusii way waxaad noo sheegtaa su'aal baa ku weydiinaa su'aasha ku weydiinaa waxa weeyaan waxa wada taagnaa wado xaaskaaga iyo walaasha mid ahaan kaliya badbaadinaysa mid kale oo dhimanaysa badbadi teebad badbaadin lahayd walaashan badbaadina sababta aad u dooratay maxay tahay sababtoo ah way gubido walaalka cidii daras ma jirto marka waa saawan way aad u maas kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay thanks magacaygu waa Jimcaale Mukhtaar Cabdi way Jimcaale waxaad noo sheegtaa laba midood kala dooranaysa walaasha ama xaaskaaga mid labadooda mid kaliya badbaadin kartaa mid kale oo dhimanaysa teed badbaadin lahayd walaashayda dabcan waayo sababta walaasha badbaadinaysa maxay tahay sababtoo ah xaas waan heli karaa heli kartaa laakiin walaal ma heli kartid walaal ma heli karo aad baa kusoo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay bismillaahir rahmaanir rahiim waan ku dhawahay channelka nuurdin magacayga oo la dhaawaan Umar Xad cawaale waxaad noo sheegtaa su'aal yar baa ku weydiinaa kaftana waxaad noo sheegtaa walaasha iyo xaaskaaga ayaa mid kaliya badbaadin kartaa mid kale oo sii deynaysa keebad badbaadin lahayd hadii lacala kugu dhici lahayd walaashan badbaadin lahaa waayo sababta inay jacayl wala helay walaaltinimo lama helo sax marka waxaad leedahay jacayl wala helay laakiin walaal lama helo ha way aad baa maas soo dhaw channelka nuurdin maxaa walaalkeeda magacaaga ku bilaabay soo dhawahay Maxamed Cabdi Xasan baa la dhawnaa maxamed cabdi adoo cod kor u qaaday waxaad noo sheegtaa laba mid ma kala dooranaysaa waxaad keebad badbaadin lahayd walaasha ama xaaskaaga mid ahaan oo mid sii dhimanayso laakiin miduu kaliya baa awoodaa inaad badbaadiso teebad badbaadin lahayd walaasha badbaadina sababta aad u badbaadinaynin xaaskaaga maxay tahay ma xaaskaa tiri musa marka hore xaaskaaga iyo walaasha labada mid way igu adag tahay wallahi sax ma joogi kartaa ma kala dooran kartid dhex roortiisa maya walaasha iyo xaaskaaga mid ma dooran kartid way igu askay midda
isku kaamil way aad u maastaa walaalkay channelka nuurdiin maxaa walaalkay adoo magacaaga ku bilaabay kudhawey walaal magacay guulada faarax weyn guuleed codka kor u qaadaya waxaad noo sheegtaa walaasha iyo xaaskaaga oo sii dhimanaya laakiin mid ahaan aad awooddeeda leedahay inaad badbaadiso mid keliya lagu ogolaya keebaad badbaadin lahayd aniga waxaan badbaadin lahaa walaashay xaaskaaga maxaa uga tagtay kulley waxaa ka mudan walaasha ya walaasha waa ka mudan kulley walaashaa mudan saas darteed baa uga tegaysaa adigu walaalkay aad baa mahadsan kusoo dhawo channelka nuurdiin maxaa walaalkay adoo magacaaga ku bilaabay waan ku dhawahay magacayguna waa maxamed maxamed adoo codka kor u qaadaya waxaad noo sheegtaa walaasha ama xaaskaaga keebad badbaadinaya labada mid keliya maad badbaadin kartaa ta kale way sii deynaysaa haddii mid badbaadi lagu dhaa waxaan badbaadinayaa walaashay way xaaskaaga uga tagtay xaaskayga iyadoo mid kale waa la heli karaa laakiin walaasha mid kale lama heli karo soo maa markaa saas darteed baa uga tegaysaa adigu haa walaasha ma waxaad leedahay markaa iyada iga muhiimsan xaaska haade markaa maxaa sababta ay ugu muhiimsan tahay maxay noqon kartaa sababtu waxay noqon kartaa tani waa walaashaay oo kula dhalatay laakiin xaaska mid kale waad heli kartaa soo maaha haddii tani ku dhaafto aad baa maastaa walaalkay kusoo dhawo channelka nuurdiin maxaa adigoo magacaaga ku bilaabay aad iyo aad baan u dhowahay magacaygu waa khadar maxamed artaale ku nool magaalada gabiley khadarow waxaad noo sheegtaa lacalla hal jaanis baad leedahay waxa lagu yidhi walaasha ama xaaskaaga mid ahaanba dhimanaysa midda kale badbaadinaysa adigu teebad badbaadin lahayd run ahaantii waxaan badbaadinayaa walaasha wayla dhalatay waayo xaas labada waan heli karaa laakiin walaa ma helayo waa sax aad baa maastaa walaalkay bismillahi raxmaani raxiim allah salli ala xasan jaamir reebel adhoolo xasan waxaad noo sheegtaa lacalla waxa lagu yidhi walaasha iyo xaaskaaga mid ahaan keliyaad badbaadin kartaa teebad badbaadin lahayd tee kulley toole labadaba walaal waad badbaadinaysaa ya walaashaayo walaalkaa kama maarmi kartid sax tanna waa ooridaada iyo xaasood wax walba xil baa iyadana ku saaran sax xilka ugu weyn weliba xil baa iyadana aad ku saaran oo lagu dhiibay laakiin haddii lacalla lagu dhaha labadooda keliya mid keliya go-aan aad leedahay hal jaanis baad leedahay inaad mid ahaan badbaadiso keebuu noqon lahaa wallaahi daa arrintaas adag marka la dhaa horta laakiin marka fikrad ahaan aan idhaahdo kulley hadday hawl waad walaasha u qaban karto ooridaada u qaban karin baa jirta walaasha u qaban karto walaasha waxaanad u qaban karin baa jirta taa kama jawaabi kartid baad leedahay macnaha mise yaa dooran lahayd markaad doorasho noqoto su-aasha waxaad markaa taana oorideeda noqonaysaa marmale halkaad ka jecesha markaa ooridaadaad badbaadin lahayd walaasha waa ka tegi lahayd dee xaaladda taagan markaad eegto ooridaadaad ayaad qaadan lahayd taniyo saasayna taaban maleyna markaad saan wado aad baa mahadsantaha walaalkay aad iyo aad baa mahadsantaha haddaad muuqaalka xaggiisii u dambeysay noola soo gaadho intii hore noola joogtay haddaad ka mid tahay asxaabta cusub ee kusoo biirisa channelka aad iyo aad baan kusoo dhaweynaa kusoo dhawo channelka nuurdiin maxamed haddaad hore noola joogtina aad iyo aad baa mahadsantahay muuqaalka xiginta ku gudbi doono wasalaamu calaykum